munaasabadan oo lagu taageerayay madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee Soomaalida ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalka Australia. xafladan caawa ajandaheedu wuxuu ahaa aan ugu tahaniyadaynay Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa dhammaan dawladdiisa oo aan celebration ugu sameeynay oo aan ugu hambalyeynayno oo aan ku bogaadinayno waxaan leenahay Cabdiwali hawsha aad qaaday Ilaahay ha kugu guuleeyo Ilaahay ha kugu xafido. sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka ayaa kulankan ka qayb galay. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud baa ugu horeeyay iyo Prime Minister Cabdiwali labada waxay u tahniyadeeyeen isbedelka waxa laga filayaa oo meesha aanaankii hore ee federaalka loo asaasay Puntland waxay tahay hooyadii dhashay federal systemka runtii wuxuu ahaa Prime Minister keeyagii ugu dambeeyay oo gaarsiiyay ama ka saaray Soomaaliya transitionka runtii waxaan dhihi karaa from 1998kii marxaladihii kala duwanaa ay Puntland soo martay waxay daruus iyo darsi dhinaca dimuqraadiyadda ay u tahay gobollada kale ee Soomaaliya waxa kale oo nasiib wanaag ah qof aan garanayo aqoontiisa kartidiisa rabitaankiisa Soomaalinimo iyo Soomaali heersar inuu gaarsiyo inay maanta gacanta ugu jirto Puntland waa ismaamulka kaliya oo nin ilaa heerka ah oo maanta madaxweyne u noqday nasiib weyn baad leeyahay reer Puntland Cabdiwali waxa looga dabaaldegay deegaanka Soomaalida Itoobiya yaa looga dabaaldegay waxa looga dabaaldegay magaalooyinka waaweyn ee geeska Afrika ku yaala markii doorashadu socotay wax gawaari ah oo socotay ma jiro waxa mashquul lagu ahaa waxa Puntland ka socda ra'iisul wasaarihi hore ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya Federaalka Soomaaliya Cabdiwali Maxamed Gaas waxa leeyahay soo dhaw aniga ku hadlayo magaca jaaliyadda Jubaland Pacifica Australia New Zealand daldisow madaxweyne diirad baan ku arkaa yoolka doonin inaad ku ekayso dalkan qorshahaaga diyaarsan ama kaad daydayayso ku darso madaxweyne waxay bulshadu doonin hadba tay dalbadaan iyo dantooda tay u arkaan waxa weeye shucuuladda u shidan Puntland weligeed taariikh bay u lahayd wayna u shidnay waana wadaniyadii iyo sharafkii iyo karaamadii lagu yaqaanay aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaheena Cabdiwali waxaanan u sagootin iyo sharaf ku sagootinaynaa madaxweynaheenii hore Cabdiraxmaan Maxamed Faroole qaar badan oo kamid ah dadkii goobta ka hadlay ayaa waxa ay qireen in Puntland ay heshay hoggaan aragti dheer leh iyagoo tusaale u soo qaatay kala guurkii dawladdii ku meel gaarka xilligii ra'iisul wasaaraha ahaa Cabdiwali dad meel walba adduunyadu marayay waxaan ka codsanayn in oo Puntland election soo socda u istaago sababtoo ah waxa noo muuqatay nin role model u ah Soomaalida gacan Australia gudahan ugu horeeyo in maanta caasimada Garowe Puntland ay ka dhacdo doorasho xaq oo xalaal ah adduunka uu daawanayo su'aalaha ay daawanayso taasoo ugu baahan karo doorada ay Puntland gaarsiiyeen Cabdiwali shalay wuxuu ahaa badbaado qaran maantana waxa uu yahay badbaadada Puntland waxaan bari uga fadhinaa Soomaali weyn oo mid ah fanaaniinta reer Australia ayaa halkaasi ku soo bandhigeen heeso loo sameeyay Puntland iyo waliba madaxweynaha cusub Laga taagay
xafladan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed uu isna soo dhisay golihiisa wasiirada si kastaba ha ahaatee Professor Cabdiweli Gaas ayaa looga fadhiyaa waxqabadkiisii ay dadku ku amaaneen iyo ballanqaadyadiisii xilliga uu ku jiray ololaha doorashada 22 December sanadkii tagay ayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Melbourne sidan oo kale halkan ugu taageereen mudane Cabdiweli haddii kolkii hore halkan lagu taageeray Cabdiweli caawana halkan ayay jaaliyaddu ugu hambalyeysay